Atooraha caanka ah ee Saif Ali Khan oo mindi lagu weeraray. Jilaaga caanka ah ee aflaanta Bollywoodka Saif Ali Khan ayaa isbitaal loo dhigay dhaawacyo badan oo toorey ah kadib markii la sheegay in qof soo galay gurigiisa uu weeraray. Weerarka ayaa subaxnimadii hore ee Khamiista ka dhacay xaafad kore oo ku taal magaalada Mumbai, halkaasoo Khan uu kula nool yahay qoyskiisa. Booliiska magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in jilaaga uu dhaawacmay kadib markii ay gacan ka hadal ku dhex maray isaga iyo nin aan la aqoonsan oo gurigiisa galay safdii dhexe kadib. Qoyska Saif Ali Khan ayaan wax hadal ah ka soo saarin dhacdada, balse kooxda uu faafiyey ayaa sheegtay in ay ahayd kiis la isku dayay in la jabsado iyada oo aan wax faahfaahin ah laga bixin. Saif Ali Khan ayaa loo qaaday isbitaalka Lilafati ee magaalada, halkaas oo uu qaliin ku marayo. Niraj Uttamani oo ah madaxa howlgalka isbitaalka ayaa warbaahinta u sheegay in Saif Ali Khan ay soo gaareen 6 dhaawac oo mindi loo adeegsaday, kuwaas oo 2 ka mid ah ay aad u daran yihiin. Mid ka mid ah wuxuu ku dhow yahay lafdhabarta, waxaa qaliinka ku samaynaya koox dhakhaatiir ah oo takhasus leh, ayuu raaciyey. Booliiska ayaa bilaabay baaritaan. Qof aan la garanayn ayaa guriga soo galay jilaagan, intaasi kadib waxaa muran dhex maray isaga iyo ninkii soo galay gurigiisa, ayuu yidhi taliye ku-xigeenka booliiska Mumbai ee Gedam. Warbixin la sii daayay subaxnimadii Khamiista, kooxda aktarka ayaa ka codsaday taageerayaashiisa inay ixtiraamaan sirtiisa. Waxaan ka codsanaynaa warbaahinta iyo taageerayaasha inay dulqaad muujiyaan, waa arrin booliiska u taala, waan idinla socodsiin doonaa wixii ku saabsan xaaladdiisa, ayay yidhaahdeen. Halkani waa Deersame iyo anigoo ah Ahmed Deer Xasan.